السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا دمانتنا يسرى ميديا channel kaad uga barateen xogta sirta ah ee qotonta dheer leh irun wadaaga. walaaleyga qaaliyeed ee Soomaaliyeed maanta waxaan doonayaa inaan halkan nigula wadaago nigula falaqeeya xog sir ah ee saameyn weyn ku leh qalaasaadkii ayaamahan dambe ka taagnaa dalka Soomaaliya ee geeska Afrika. qalaasaadkan oo lagu leh khilaaf soo dhaxgalay kana dhex taagan mas'uuliyiinta maanta xilkooda dhacay ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo siyaasiyiinta u sharaxan inay xil mustaqbalka iyo alla ay ka qabtaan dowladda federaalka Soomaaliya. xogtan walaalayaal qaali waxaan doonayaa inaad sii shaargaraysiin oo shakhsiyaadkiina aad ku adkaanin oo dunida dacaladeeda meel walba ay Soomaali joogto aad la wadaagtiin. sidoo kale waxaan doonayaa walaalayayga qaaliga 4 qaybood inaan u kala dhiga arintan xogta sirta ah aan soo diyaarshay biinilaahi kariim. 4taas qaybood oo sida tan ku bilaaban doonta. qaybta koowaad waxa weeye walaalayga qaaliga khilaafkan ay soo dhaxgalay siyaasiyiinta mucaaradka iyo muxaafadka oo laaya heerna isla gaareen inay foolka fool isku baacsadaan hub adag jidka bartamihiisa shacabka dhexdooda waxa sababi kara iyo cidda cagta ku leh. sidoo kale waxaan qaybta labaad nigula falanqeyn doonaa walaalayga qaaliga ah dowladaha shisheeye ee maanta dalka Soomaaliya daneeya ay cagta kula jiraan ma waxay saameyn ku leeyihiin arintan khilaafaadkan soo dhaxgalay siyaasiyiinta muxaafadka iyo mucaaradka mase waxa weeye dad banaanka ka taagan oo ka fajacsan waxa dalka ka socda gudihiisa. xogta saddexaad aan doonayo inaan ila wadaago walaalahayga qaaliga waxay tahay maamul goboleedyada qaarkood oo maanta ayagana mucaaradka taageeraya sidaan arkaynaa khilaafaadkii soo dhaxgala siyaasiyiintana rabsheynaya ma yaa ka dambeeya oo dabada ka riixaya. maxayse tahay danta ugu jirta inay siyaasiyiintan soo dhaxgalaan ayagoo gobol maamuleedka mas'uuliyiintooda ah. sidoo kale waxaan doonayaa al-uutama qodobka 4aad saameynta ay ku leedahay jiritaanka dalka Soomaaliya iyo khaasatanba ummadda Soomaaliyeed ay qowmiyadda Soomaaliyeed ma waxay jiri doontaa arintan inay saameyso khilaafaadkan oo uu sii shareero cirka sii aado Soomaali si kasta ay qarni kastaba dagaal iyo rabsho ay soo gali jirtay maanta inay ku guul dareysato ay cagtooda jabto mase waxay noqon doonaan sidii kuwii lagu yaqaanay qarnidii hore qarnigaana inay kor madaxooda u soo qaataan oo hore u sii socdaan. mar labaad ku soo dhawaada channelkaad uga barateen xogta sirta ah iyo run wadaaga channelka Yusra Media. aan ku bilaabay walaaleyga qaaliga ah mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha hadeertan oo xilkiisa dhacay ee dowladda federaalka Soomaaliya kaas oo 2019 taariikhda dib hadaan igu celiyo walaaleyga qaaliga xog sir ah soo ogaaday sababta dowladda Soomaaliya siyaasadeeda hore ugu socon laada ummadda Soomaaliyeedna ay u dhibantahay shacabkooda kaas uu ogaaday geeska Afrika waxa dhibaatada ka taagan meesha ay ka timaaday hadduu baaray mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo oo 2019 si jiraa'id ku qabtay dalka Ingiriiska qaasatan galbeedka Yurub caasimadiisa London taas oo ay uu ka soo xaadiriyay mas'uuliyiin dowladdiisa markaas ka mid ahayd siyaasiyiintan oo mis la fariistay shirkadaha daneeya gaaska iyo olyada ama saliidda Soomaaliyeed. shirkadahaas oo ay xilfaatan badan ay markay la galeen ee la soo ogaaday inay 30 sano taariikhda dib hadaan nigu sii celiyo saameyn weyn ay ku yeelatay inay contract ama heshiis waraaqadeed shirkadda Shell la yiraahdo la gashay dowladdaas Jamhuuriyadda Soomaaliya 30 sano ka hor jirtay ay madaxweynaha uu ka ahaa mudane Siyaad Bare. shirkadaas oo ay ka soo jeedo qaasatan sidoo kale galbeedka Yurub oo ay dalka Holland
shirkadan oo Shell la yiraahdo ayaa waxay qoday shidaalka ama isku dayday ooliyada iyo shidaalka Soomaaliyeed inay u qodo markaas Jamhuuriyadda Soomaaliya 30 sano ka hor ayadoo markaas ay qaxi iyo dagaalkii sokeeye ay ku bilaawmeen oo khilaafaad badan meeshaas uu ka dhaxmaray siyaasiyiin caloosha u shaqaystayaal ah oo ayakana doonayay inay wax saameyn weyn ay ku yeeshaan dalalna u adeegayay saasna jamhuuriyaddii Soomaaliyeed ay taagneed markaas dawladdaasna ay ku rideen gacan bir markuu isku dayana madaxweynahaas inuu ku qabto ay u suurtagali weysay oo ku guuldareystay waxa maanta jira walaalahayga qaaliga waxay tahay 2019 inay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu soo ogaaday deemanka la hadal ee 24 saac saqiirka kabiirka dunida dacaladeeda dibad iyo dal gudahoodaba Soomaaliyeed ay hadal hayaan deemankan inay tahay deeman qarsoon sirtoodana ay soo ogaaday shirkadda Shell inay ka dambaysa oo hore uga socon la asaas darteeda dalkan oo dal qani ah adduunka caalamkana isku sheegay inay dalkan uu yahay dhul qani ah taas oo ogaaday maadaama uunan haynin lacagna aysan haynin dulal faqiirana ay noqotay dalka dawladda Soomaaliya ayaa wuxuu xal uga dhigay inay uu heshiis waraaqadeed cusub uu la saxiixdo tiisiyaad barad ka duuneed dawladda shirkadda Shell oo taas ay ku raacday laakiin tiri waa Shell waa ku qodaya shidaalka iyo ooliyada laakiin hal mid ay tiri sharuudaas ay tahay ay ku xirtay in ayadana deemankeeda loo gudi doono taas oo heshiiskii meeshaas uu ku degay hadeertaanse waxa taagan walaalahayga qaaliga khilaafka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo dawladdiisa iyo ay ka taagan tahay mucaaradka hadeertan u diyaarsan ama ay doonayaan mustaqbalka inay madax ka noqdaan ee hagaana dalka Soomaaliya waxay tahay inay dawladaha Carabeed ay abadanba ka soo horjeedaan inay Soomaaliya hore u socoto gaaskooda iyo olyadooda taasoo ayaga qasaaro weyn ku soo dhalinaysa haday Soomaaliya gaas iyo olyo loo qodo Soomaaliya oo markaas qani noqonaysa ayagana uu gaaskooda hore u dhacaya maanta qaaliga dunida ku ah ay si kastaba geedka hoostoodana ugu fadhiisanayaan wax walba oo ay ka suurtoodana ay u samaysanayaan sidee ayakana aanan u fashilmin laakiinse ay inta lacag ay maanta haystaan ay ku bixiyaan musharaxiinta maanta u sharaxan inay federaalka dalka Soomaaliya ay wax u qabtaan waxaa jira oo kale walaalahayga qaaliga ah gobol maamuleedyada maanta dalka Soomaaliya ka fangalaysan inay dawladaha dariska Soomaaliya la ah ay saameyn weyn ayakana dhabarka ka liixayaan kuwaas oo doonaya inay shidaalkii ooliyada inay wax ka qabsadaan waxna ku yeeshaan qaasatan hor u kaca ay u tahay dawladda Kenya oo hunguri badan soo galay ayadoona u haysan markii hore dal qaliya inuu yahay qaniya inay tahay dalka Soomaaliya maanta laakiinse markii arin fashilmatay jecelaysatay inay ayadana ay qayb Soomaaliya la wareegto ayada xukuumadeeda hoos timaada sidii gumeystii hore uu qayb dalka kamid ah u siiyay taas oo ay dantooda ay tahay una adeegsanayaan gobol maamuleedyada laakiinse ayakana caalamka ka codsaday inay gobolo noqdaan gooni u taagan gobolada aan ka hadlayo aan falaqeynayo haddaan nila socodsiiyo walaalayaal waa sidaad la socotiin gobol maamuleedka Jubbaland uu ka yahay Axmed Madoobe shaqsigaas mas'uul iyo gobol maamuleedka ay Puntland u dani maantay xukuumadda ka haya labadaas shaqsi ay gobol maamuleedyadooda ay doonayaan gooni istaag inay u noqdaan sidii Somaliland ay caalamkana ka codsadeen wargeyska adduunkana lagu soo hadal qaatay inay yihiin autonomia wax lagu tilmaamo gobol kaligood ismaamula kuwaas oo dawladaha dariska iyo ilaa Carabta jecel inay ayakana wax ku darsadaan kaligood ismaamulaan
laakiinse meeshaas sirta qotan ay ka soo horjeeda ay tahay in lagu danaysanaya oo dalka raba in lagala wareego carabta oo jecelaysatay Puntland inay faraha u galiso dalka Itoobiya iyo ay siday hadhowtii u noqon Soomaaliya dhul qani ah oo ay ka faa'iideystaan ummadda shacabka Soomaaliyeed sirta kale ku qorsan waxay tahay dowladda Kenya oo ayadana sidoo kale u halgamaysa inay qayb ka yeelato ay mas'uuliyadeedana la wareegto Jubbaland Axmed Madoobe uu tumay inay ka taqlususto maadaama uu magag yahay laakiin shirqoolna ayadana u wado laakiin ku sasabaysa lacag iyo amni aanan jirin markaas ay meeshaas ka cadahay mucaaradka maanta ay dowladda federaalka Soomaaliya xilkeeda dhacay taagtaagaya oo bacbacsanaya inay warba u haynin kuwa gadaashooda fadhiya ee gobol maamuleedka shakhsiyaadkooda waxay u danleeyihiin laakiinse aaminsan inay isku hadaf yihiin taas oo ay been raad leh ay tahay sidoo kale walaaleyga qaaliga waxaa jirta inay labadan gobol maamuleed aysan doonaynin inay qof iyo cod dalka Soomaaliya uu ka dhaco taas oo argagax badan markaas ku keenaysa shacabka Soomaaliyeed awood inay yeeshaan oo dalka mas'uuliyadooda la wareegaan taasoo aad u daneynaya u rabo intuuna xilka ka dhicin inuu taas uu fuliyo محمد عبد الله محمد فرماجو كاس أو شخصي أهانتي سدوني يقول إنه نقطة مدنة تاريخ قنية كريبة دالك الصومالية وجيت كيسنا أوي هاي حلقة صوبتو وصوكر أسو هدير كهر أسوغو مسؤوليتنا كهي دولدي وهقامنا مدحضنا كأها شيخ شريف cararay dalka iskana casile hadana uu isiiri dalkaaga iyo dadkaaga wax u qabo oo taariikh ku reeb sidoo kale hal qof iyo cod ma doonayaan inuu dalka ka hilgalo awoodana shacabka ay u soo gasho gacantooda ay siyaasadiinta qarni ka qarni waligood ba isku haysteen gaaska iyo olyada kuwaas oo mucaaradka oo doonaya inaysan doorashada guud ahaan ayna ka dhicin dalka maxaa dhacay waxaa gabagaba soo gashay waqtigii la qasi lahaa la qodi lahaa shidaalka iyo gaaska iyo olyada nimcada Soomaaliyeed taasoo laga soo horjeeda oo la doonaya marka inay la musuqmaasuq xoog intay ku kursiga lagu baneeyo maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo xilka iska casila ay doonayaan ayakana markaas ay u halgamayaan sirta laftigooda xataa aanan iyo hal mowqif inaysan ahayn meeshaas waxaa ka cad inay laftigooda xataa siyaasiyiinta maanta ay mucaaradka isku magacaabaya inay iskhilaafsan yihiin dhexdooda laakiin hal wajah ay leeyihiin inuu dalka Soomaaliya horena u soconin ay shilinkoodana ku qaataan ummadda Soomaaliyeedna musuqmaasuqaas waligood ay ku hayaan taas ay u halgamayaan laakiin haddii alla kursiga uu u faraajin lahaa maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxa weeyaan meeshaas inay ayakana sidii 91dii ay isku jiijiidan lahaayeen anaa xilka qabanaya iyo anaa xilka qaynaya ee meeshaas doorasho iyo cod rasmiya oo ka soo bixeenin odayaasha dhaqanka ay beelaha Soomaaliyeed oo arintaas ogaaday qaarna ka aamusan qaarna ka dhiidhiyay inaysan dib u rabin musuqmaasuq iyo afduub dambe kuwaas oo ay soo cadeeyeen soona ogaadeen maanta argagixisada dalka joogta iyo sida ay loo argagixinayo dalka Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliya loo halaagayo iyo miinooyinka loo dhigay inay ka dambeeyaan siyaasiyiinta aanan doonaynin dalka Soomaaliya inuu hore u socdo kaas oo ay markasta ku mushqaalinayaan amni dariya dalka ka jirta amni dariba dalka ka jirta taas oo lagu marahabaabinaya aqliga shacabka waxgaradka ah hor u socodka Soomaaliyeed waxaa hortaagan waa dalalka Carabta oo number 1 ku ah lambarka labaadna waxaa galaya waxay tahay dowladaha ay Soomaaliya ku hareersan
carabta oo dowladaha Soomaaliya ku hareersan la gashay heshiis inay u kala qaybin doonaan ayakana mas'uuliyadda korka ka hayn doonaan. waxaa jirta walaalahayga qaaliga dowladda federaalka Soomaaliya inuu Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo xilkiisa hadeertan dhacay uu 4 sano shacabka rabitaankooda iyo nabadgelyadooda aad uga shaqeeyay, taas uu ka alaaliyay dowladaha soo daneeya Soomaaliya inay sal ku yeeshaan Soomaaliya, albaabadana u xirtay, taas uu si kasta uu amniga dalka Soomaaliya u ilaalin karin dhexdiisa haddana dibaddii ka daafacay. midda kale uu aad ugu dadaalay Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo waxay tahay inay deemankii Soomaaliya taas uu u cafitire ee la isku haystay oo hadeertan la doonaya dowladda federaalka Soomaaliya inay noqoto mid kalani u taag ah oo awood leh oo shacabkooda awood u yeesha ee u yeelaan. mideeda kale waxay tahay inay dalka xooga inuu ka adkeeyay si kasta uu u jeeday Soomaaliya ama hal mar inay la wareegay inay noqotay inay ayada badbaado, taasoo badbaadada ka doorbiday uu doortay uu jeclaystay uu ciidanka Soomaaliya mushaar fiican u qoray sidii daacad dadkooda ugu ahaadaan oo xoogna ugu dhisay dalka Soomaaliya. waxqabadkii dowladda Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo oo ciil badan ku haya mucaaradka maanta jira, dhan walbaba ha ka soo jeedaan dowladday doonaanna waxa ka qaataan laaluushe, doonayana hadeertaan inay xilka kala wareegaan, laakiinse aysan doorasho xalaala marna ayna ogoleen. taas darteeda ay Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ay cabsi ka qabaan dib inay shacabka Soomaaliyeed u soo doortaan. shacabow marka waxaan sii falanqayn doonaa fiidiyowga ku xiga walaalahayga qaaliga ah. sidoo kale Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo sababta uu baasaboorka dalka shisheeye u dhigay iyo wixii saameyn ay ku lahayd. qodobta kale aan gali doono walaalayaal aan ila wadaagayo waxaa weeye sida tan: dowladaha shisheeyaha kaliya ma aha waxaa carabta ay Soomaaliya daneynaya, waxa weeyaan sidaan ognahay dalka Shiina oo saameyn weyn iyo qotan dheer ku leh gobol maamuleedka Puntland, waxyaabo badanna u qabata ka soo horjeedana diiniyanba inay hor u kacdaba, dan badanna ay ka leedahay dalka Soomaaliya, ay jeceshahana dagaalada soo socda qarniyada dambe inay saameyn weyn ay ka faa'iido dhaqaale badanna shidaalkaas ay ka soo gasho. Shiina oo danaynaysa dalka Soomaaliya una danaynaysa inay waxqabad iyo raad kale ay ku yeelato, taasoo aad laga Shiina oo sidoo kale saaxiib weyn la ah dalalka ka soo horjeeda dalka Soomaaliya la wajina ugula jeedo meeshaas. waxaa jirta walaalahayga qaaliga oo dadka Soomaaliyeed ay muslimiin daacada ay u arkaan dalka Turkiga, asaga oo dowladda Farmaajo ay ogsoon tahay maanta inay dad ayakana musuqmaasuqooda dantooda wata tahay, laakiinse u dhoola cadeynaya ogaana inay Turkiga hadduu kugu danaysanayo adna dantaada aad ku qabsan karto, laakiinse siyaasiyiinta kale aansan ogeyn. Turkigana dan weyn ay ugu jirta siyaasiyiinta kale maanta inaysa ayakana ay xilka qabtaan. Turkiga oo dhaqaalihiisa hoos u dhacay, lacagtiisana qarniyadan dambe ayaamahan dambe siiba hoos u dhacay oo ka raadinaya dalka Soomaaliya inuu shidaalka u qodo. hadduuse Turkiga shidaalka u qado ma daafici doonaa mise wuxuu Soomaaliya u dayici doonaa ayaa su'aasha taagan ah, sidii Liibiya oo maanta dalalka shisheeye ay taangiyada ku garaacayaan ay shacabkoodana xasuuqayaan. kulli xaal walaalayaal haddaan warkii isku soo koobon koonbok culus nagu soo rido waxay tahay inay dowladda Farmaajo maanta ay saan qaadi leeyahay 4 sano mucaaradkan aawadooda iyo dalalka shisheeye ee laga soo adeegtay. maantana haddii dalka saas uu ku sii socdo inay tahay inay ficiltimo loo hadba garab laga qabsado oo ummadeeni la xasuuqa intii dalka ku nooleed ciideena lala wareego.
haddii shacabka maanta Soomaaliyeed aqli isku yeelaan oo dowladooda ilaalsadaan oo ay dhahaan qof iyo cod intii laga gaarayo xil dambe lama qaban doono ay ku dhabar adeegaan waxaan hubaa anigula talinaya walaalayga qaaliga ee adduunka caalamkana saas ay rajeynayaan inta dalka Soomaaliyeed danaysa laakiinse wanaaga la jecel inay xilka la wareegayaan ummadda Soomaaliyana sidii hore ay ku soo laabanayso dhul qaniya ay tahay dhul ay faa'iido badan maanta ay ka soo galayso ummadda Soomaaliyeed inay tahay kuweena ku kala fidhisan dunida dacaladeedana ay nabadgelyo iyo nolol wacan meesha ka heli doonaan laakiinse wax walba waxay ku xiran tahay shacabka Soomaaliyeed siday farkaan uga faracelin lahaayeen